السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تانينا واقيبتي تطبعات اتحانها موضوع إيدي أمين دادا يحريركي صومالي دا كسو دو هذا صاحب يال إيدي أمين دادا إيا بقركي ودنك السعودي إريبيا بقر فيصل هبين أيو مدحوين إيدي أمين لسو هالي سفارة دي صوماليا إي ودنك يوغاندا وحونا سفيركي هالكاسي جوغي حسين علي دعالي وشاقي إن أوبريتو ودوفي مقالة مقدشو وحوان باسدور حسين كعد صدي in uu wargeliyo madaxweyne maxamed siyaad barre sida borotokoolku yahay waa in safiirku safarka ku weheliya madaxweynaha oo uu raaca dalka madaxweyne Idi Amin Dada waxa uu lahaa diyaarad khaas ah oo ay niman cadaan ahay u wadaan intii aanu cirka ku sii jirnay ayuu yiri ambassador Hussein oo arinta faafahinaya madaxweyne Idi Amin waxa uu iga sheekay arin dhexmartay isaga iyo boqor Faisal bin Abdul Aziz Al Saud waxaanu madaxweyne Idi Amin yiri waxaan damcay in aan militariga u dhiso guryo ay askartu gasho waxaan boqor Faisal bin Abdul Aziz ka codsaday lacag dhan 20 milyan oo dollarka Mareykanka ah wuu iga aqbalay muddo sanad ah ayaan sugay guriyihii askarta oo aan dhismahoodii bilaabay way istaageen iyaga oo wada qabiyo ah aniga oo aad u caraysan ayuu yiri Idi Amin ayaan magaalada Riyadh ka degay intaanan dhoofin waxaan ku sii ritay shandada gacanta ee Samsonite loo yaqaano ee gacanta lagu qaato ilaa iyo 50 xabo oo ah baaradii laga jaray dadkii aan muslimiyay markii aan boqor Faisal hor fadhiistay ayaan aniga oo cadhaysan ku iri boqor Faisal adiguna waxoogaa lacag ah ayaad igala masuugaysaa aniguna bal eeg hawsha culus ee aan hayo shandadii intaan furay ayaan baaradii ragga laga jaray oo dhan u soo saaray miiska waa miiskii quruxda badnaa ee hor yaalay boqor Faisal ayaan hor dhigay boqorkii inta uu naxay ayuu kursigii dib ula dhici gaaray dhidid fara badan ayaa wajigiisa ka soo booday waxaan ka baqday in wadnuhu istaago laba wasiir oo qoyska reer boqor ah ayaa kursigii dib ugu soo celiyay dhididkiina wajiga ka masaxay boqor Faisal bin Abdul Aziz wuxuu amar ku bixiyay in jeegii oo ay ku qoran tahay 20 milyan oo dollar hadda degdeg loo keeno nus saac kadib lacagtii gacanta ayaa la iga saaray ayuu yiri Idi Amin Dada isla galabnimadiina waxaan ka soo dhoofay magaalada Riyadh intaas ayuu safiirkii Soomaaliya u sheegay Idi Amin Dada wuxuu kaloo Amin u sheegay in uu bariyihii dambe markii uu boqor Faisal u sheego in uu mucaawimo ka rabo uu boqor Faisal oran jiray Sheikh Amin fadlan ha iman ee iska joog wixii aad u baahan tahay ii soo sheeg intaas ayuu uga sheekay madaxweyne Idi Amin safiirkii Soomaaliya Hussein Ali Ducaale 1979 markii madaxweyne Idi Amin xukunka laga tuuray boqortooyada Saudi Arabia aad buu soo dhaweysay isaga markii uu Jidda ka degay waxa Idi Amin wehelinayay afartiisii xaas iyo 25 caruur ah oo u dhalay hudheel dhan ayaa dadkii deganaa looga saaray madaxweyne Idi Amin iyo xaasaskiisa iyo carruurtiisa halkaas oo uu ku noolaa ilaa inta uu ka dhimanayay sanadkii 2003 madaxweyne Idi Amin Dada oo laga hor joogsaday shirkii barwaaqa sooranka waxa kale oo jirtay dhacdo qosolkeeda leh nin Ingiriis ah oo professor ka ah jaamacadda Makerere University ee Kampala ayaa buug qoray buugaas mala awaalka ah ama novelka ah wuxuu u bixiyay The Village Dictator kalidii taliyihii tuulada waxa madaxweyne Idi Amin laga dhaadhiciyay in macalinkan Ingiriiska ahi uu isaga laf ahaantiisa u jeedo wuxuu Amin amar ku bixiyay in professorka la xidho dawladda Ingiriiska ayaa aad u dhibsatay xariga professorka lagula kacay iyagoo ka warqaba khatarta ka jirta xabsiyada wadanka Uganda hubaal la'aanta ka jirta in qofka la xidhaa isaga oo nool ka soo bixi karo xiriirka ka dhaxeeya madaxweyne Idi Amin iyo Ingiriiska aad ayuu u xumaa intii ka dambeysay erigii uu Idi Amin eriyay hindida ee uu ka saaray wadanka Uganda waxa ay dawladda Ingiriisku go'aan ku gaadhay in shirka dalalka barwaaqa sooranka ee loo yaqaano Commonwealth ee lagu qabanayay magaalada London aan lagu marti qaadin madaxweyne Idi Amin dhinaciisa wuxuu Idi Amin kaga dhawaaqay in uu shirka ka soo qayb gali doono dawladda Ingiriiskuna aanay awood u lahayn in ay shirka iska hortaagto maadaama dalka Uganda xubin ka yahay dalalka ku buhoobay ururka barwaaqa sooranka Commonwealth loo yaqaano dawladda Ingiriisku intaanu shirku bilaabmin wadnaha ay farta ku haysay iyada oo ka baqaysa in Idi Amin ka soo dago madaarka Heathrow ee magaalada London taas oo mugdi kaga jiray dawladda Ingiriiska maaraynta madaxweyne dal shisheeye oo madaarka soo caga dhigtay adduunyuhuna wada fiirsanayo waxa ay ka yeelayso nasiib wanaag Idi Amin Dada hanjabaadii ahayd madaarka London ayaan ka degayaa muflin arrintaasina may dhicin xiriirka dawladda Ingiriiska iyo Amin oo heer aad u hooseeya maraya ayaa professorka Ingiriiska ah la xidhay maadaama ay og yihiin in uu Amin jecel yahay askarinimada xushmeeyana wixii sarkaal ciidan noqday dal kastaba ha ka soo jeeday ayay generaal sare oo Ingiriis ah u soo direen Idi Amin si uu uga codsado in Idi Amin
uu brofesorka sii daayo. madaxweynaha waddanka Uganda Idi Amin Dada markuu maqlay booqashada generaalkan Ingiriiska ah ayuu u duulay tuuladiisii waqooyiga Uganda. mudul ayuu dhex fadhiistay Idi Amin. wariye ka socda telefishinkii Uganda ayuu dhinaciisa dambe fadhiisiyey. generaalkii Ingiriiska ah markuu ka soo degay madaarka Entebbe ee Uganda ayaa loo sheegay inuu Amin ku maqan yahay magaalada Arua. dayuurad helicopter ah ayaa generaalkii lagu qaaday. mudullada Afrikaanka albaabadoodu way wada gaaban yihiin. xataa qofka gaaban ayaa ku khasban inuu foorarsado si uu u soo galo mundulka. generaalkii Ingiriiska ahaa wuxuu ahaa generaal aad u dheer. markii uu mundulka gelayay ayuu ku khasbanaaday inuu si lixaad leh aad hoos ugu foorarsado. sawirqaadihii telefishinka Uganda ka socday ee dhinaca dambe ka fadhiyey madaxweyne Idi Amin ayaa sawiray generaalkii oo aad moodo inuu u sujuudayo Idi Amin Dada. subaxnimadii ayay wargeysadii iyo telefishinadii soo saareen musawir muujinaya generaalkii oo u sujuudaya Idi Amin oo kursiga ku fadhiya oo qoslaya. waxaana ciwaan uga dhigeen generaal Ingiriis ah oo u sujuudaya madaxweyne Idi Amin. maadaama uu qasdiga Amin ahaa in uu helo sawirkan si uu wejigabax ugu rido generaal Ingiriis ah, salaan kadib wuxuu kula ballamay inay ku kulmaan Kampala. generaalkii markii uu subaxnimadii arkay wargeysyadii iyo telefishinkii ayuu dib ugu duulay London isaga oo aan Idi Amin la kulmin, dareemayana dabinka uu Idi Amin u dhigay aadna u cadhaysan. bil kadib ayay mar dambe Ingiriisku isku dayeen sidii brofesorka looga furfuri lahaa gacanta Idi Amin. waxay u soo direen wasiirkii arrimaha dibadda ee wakhtigaasi James Callaghan oo mar dambe noqday ra'iisul wasaare. madaxda Afrikaanku ku calool samaayeen iyagoo u arkayay inuu yahay siyaasi taageera qadiyadaha Afrikaanka. wasiir James Callaghan ayaa la kulmay madaxweyne Idi Amin. si fiican ayuu Amin u soo dhaweeyey wasiirka isaga oo ka aqbalay codsigiisii ahaa in uu xabsiga ka sii daayo brofesorka Ingiriiska ah ee xidhan. intuu wasiirku la fadhiyey Idi Amin ayaa brofesorkii la keenay. wasiirkii ayaa u mahadnaqay Idi Amin. madaarkii Entebbe ka duulay isaga oo uu heliyo brofesorkii Ingiriiska oo damcay in uu yuhuudda dhulka siiyo Uganda. waxaa dhismaha kanaalka Suez ku shuraakoobay dalalka Ingiriiska, Faransiiska iyo Masaarida. Masar waxaa xukumi jiray boqor Khadiif Baasha. dowladda Ingiriiskuna dusha ayay kala socon jirtay. waxaa kanaalka dhismihiisa la bilaabay 1850kii waxaanu dhammaaday 1869kii. 19 sano ka bacdi kanaalkan oo dhererkiisu dhan yahay 139 kilomitir iskuna xidha Yurub, Asia iyo Afrika, lagagana maarmay dariiqii dheeraa ee awal la mari jiray ee laga wareegi jiray magaalada Cape Town ee Koonfur Afrika. waxaa dhisay kanaalka Suez injineer Faransiis ah oo la odhan jiray De Lesseps. 1820kii ayay niman yuhuud ah oo ku noolaa dalalka Yurub ay abaabuleen xarakada la yidhaahdo Sahyuuniyadda Zionist Movement. wuxuu ahaa in ay yuhuuddu dhul ku yeelato Falastiin kuna andacoonayaan inay Falastiin tahay meesha awoowayaashood ka soo jeedaan oo ula baxeen ardul Israa'iil ama Earth Israa'iil, dhaxalkii Israa'iil. taas oo u rumowday markii qaramada midoobay go'aamisay dhalashada dowladda Israa'iil 4 May 1948. boqorkii waddanka Masar Baasha ayaa damcay in uu iibiyo saamigii Masar ku lahayd shirkadda kanaalka The Suez Canal Company. dowladda Ingiriiska ayuu la xidhiidhay inay saamiga Masar ka iibsadaan. Ingiriisku iyaga oo ka cabsi qaba in haddii ay iibsan waayaan uu boqorku Faransiiska ka iibiyo ay ballan qaadeen inay ka iibsanayaan saamigiisa si dhaqso ahna lacagtiisa u siin doonaan. bixintii lacagta ayaa dowladdii Ingiriiska ku adkaatay. wakhtigaas ra'iisul wasaaraha Ingiriisku waxa uu ahaa nin asal ahaan ka soo jeeda Yuhuud oo la odhan jiray Benjamin Disraeli. wuxuu amaah ka raadiyey qoys maalqabeen ah oo Yuhuud ah oo bangiyada Yurub ugu weyn lahaa oo la odhan jiray Rothschilds, xaruntooduna ahayd magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska. wuxuu ka codsaday inay lacagtaasi amaahiyaan dowladda Ingiriiska. wuxuu Rothschilds ra'iisul wasaaraha weydiiyey maxaa ii damaanad ah. wuxuu ra'iisul wasaaraha Ingiriisku Benjamin ugu jawaabay waxa idin damaanad ah calanka boqortooyada Ingiriiska iyo aniga oo ah Yuhuudi isla mar ahaantaana ah ra'iisul wasaaraha boqortooyada Ingiriiska. waxaan kaloo ku sheegayaa in ay dowladda Ingiriisku u gudi doonto Yuhuudda abaalkaas. ra'iisul wasaarihii deyntii wuu helay. sidaas baana Ingiriisku ku iibsadeen saamigii Masaarida, taasi oo Faransiiska aad uga cadhaysiisay maadaama uu tartan siyaasadeed ka dhexeeyey labadooda dal. waxa 1901dii Ingiriisku u yeedheen guddoomiyihii kooxda la baxday xarakada ama dhaqdhaqaaqa Sahyuuniyadda oo lagu magacaabi jiray James Weizmann oo 1948kii noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Israa'iil yeelato. waxay Ingiriisku u sheegeen inay jecel yihiin inay Yuhuudda ka siiyaan Uganda meel ay degaan. James Weizmann waa uu diiday yaboohdaas ay soo jeediyeen Ingiriisku, wuxuuna ugu jawaabay sidan: dhul Uganda aad naga siisaan Yuhuuddu kuma dagaalami karto, waayo xuduntayadii kuma aasna. waxaannu rabnaa in aadna siisaan dhul xudunta Yuhuuddu ku aasan tahay, difaaciisana u dhiman karno. arrintii halkaasi ayay ku soo afjarantay.
oo lagu dhaafay dib dambaysana layskuma soo weydiin qorshihii ingiriisku doonayey inuu yuhuudda ku siiyo dhulna kaga siiyo waddanka uganda 1917 ayuu wasiirkii arrimaha dibadda ee wakhtigaas Mr Balfour ku dhawaaqay in yuhuuddu meel ay degaan laga siin doono dalka Falastiin ku dhawaaqistaas wasiirka arrimaha dibadda oo la magac baxday heshiiskii Balfour the Balfour Declaration horseedna ka noqotay dhibaatada ilaa maanta ka taagan bariga dhexe wax hal ahina aanu u muuqan mustaqbalka in laga gaari doono arrintani waxay ka turjumaysay abaalkii dawladda Ingiriisku u haysay yuhuudda amaahdii ay u hureen si ay u iibsadaan saamigii masaaradii ku lahayd sharikadda Canal Suez 1956 ayuu Jamaal Cabdinaasir madaxweynihii hore ee dalka Masar qarameeyay shirkaddii Canal Suez ee maamuleysay marinka kanaalka ay wada lahaayeen Ingiriiska Faransiiska iyo Masaaridu balse saamigii Masaaridu uu ku wareegay Ingiriiska arrintaas waxay dhalisay in ay Ingiriiska Faransiiska iyo Yuhuuddu duulaan iyo dhul ah ku soo qaadaan Masar gacantana ku dhigaan magaalooyinka Port Said iyo Suez madaxweynihii Mareykanka ee waqtigaas Eisenhower ayaa ku khasbay saddexdaas dawladood inay si degdeg ah uga baxaan Masar taasi oo keentay in uu iscasilo ra'iisul wasaarihii Ingiriisku oo lagu magacaabi jiray Sir Anthony Eden halkaasi ay ugu xalaalowday in uu dalka Masar yeesho kanaalka Suez wixii dakhli ah ee ka soo baxana ay ku xirooto gacanta dawladda Masaarida halka ay awal ku xiroon jirtay gacanta dawladaha Ingiriiska iyo Faransiiska saaxiibayaal qaybteena toddobaad ee taxanaha Idi Amin Dada halkaas haynoo joogo la soco qaybteena 8aad iyo biri oo aan idin bilaabi doono qaabkii uu u dhacay dagaalkii Entebbe ee ay yuhuuddu ku soo furatay muwaadiniintii yuhuudda ahaa ee lagu xanibay ama lagu afduubay waddanka Uganda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.